Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. 2018 Mareykanka, haweeney ayaa la waayay. Kadibna waxay bilaabeen boolisku inay baaritaan sameeyaan. Intii ay baaritaanka ku jireen, waxay wareysiyo ka qaadeen dadkii looga shakisnaa inay ka dambeeyeen weynteeda. Waxaa ka mid ah dadkii ay wareysiyada ka qaadeen oo ay baaritaanka ku sameeyeen haweeney ay ogaadeen markii ay baaritaan ku sameeyeen inay geeriyootay 30 sano ka hor. Wuxuuna ku noqday arrin la yaab leh, sidee haweeney geeriyootay 30 sano ka hor ay u horfadhidaa booliska oo ay baaritaan ugu sameynayaan. Waxayna boolisku daha ka qaadeen arrin ka yaab badan kiiskii ay baaritaanka ku hayeen. Muuqaalka maanta insha Allah waxaan kaga hadli doonaa sidee haweeney geeriyootay 30 sano ka hor ay booliska u horfadhiday oo ay baaritaan ugu sameeyeen. Sidoo kale maxaa ku dhacay gabadhii la waayay. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Qisadeena maanta waxay ka dhacday magaalo lagu magacaabo Fernandina Beach oo ku taala gobolka Florida ee waddanka Mareykanka. 14 May 2018, haweeney lagu magacaabo Ann Johnson ayaa waxay la soo xiriirtay booliska waxayna u sheegtay in gabadheeda la waayay. Gabadheeda waxaa lagu magacaabaa Jolene Cummins, waxayna ahayd 34 jir. Ann Johnson waxay u sheegtay booliska in 2 maalin aysan arag gabadheeda, gurigana aysan dib ugu soo laaban muddo 2 maalin ah. Waxay u sheegtay maalinkii 12 May sidii ay shaqada u aaday inaanay dib ugu soo laaban. Waxa cabsida ku abuurayna waxay ahaayeen maalinkii 12 May waxaa la rabay in ninkeedii hore oo ay kala tageen oo lagu magacaabo Jason Cummins ay carruurta ka soo wadato. Jason iyo Jolene waxay isguursadeen 2013 waxayna dhaleen 2 carruur ah. 2017 ayay kala tageen maadaama uu khilaafkoodu aad u batay. Ilaa iyo xilligaasna waxaa ka dhaxeeyay Jolene iyo Jason dacwad maxkamadeed oo waxay isku haysteen cidda ilmaha xanaaneynayda oo ilmaha ay la joogayaan. Inta maxkamadda ay ka soo dhamaanayaan oo kiiska laga xalinayana, ilmuhu marba qof ay la joogi jireen. Tookadaana waxay ahayd tookadii Jolene oo waxaa la rabay maalinkii 12 May in ilmaha soo wadato oo iyadu ay markaan haysato. Sidoo kalena waxay u sheegtay Ann Johnson booliska in maalinkii 13 May oo uu ahaa Jolene maalin u qaasa, sababtoo ah wuxuu ahaa maalinka dhalashadeeda, inaysan carruurteeda ka soo wadan ninkeedii hore. Sidoo kalena ay maqnaato maalinka dhalashadeeda ayaa cabsi ku abuuray hooyadeed. Sidoo kale Ann Johnson waxay u sheegtay booliska in gabadheeda ay ka shaqayn jirtay saloon lagu magacaabo Tangles. Markii ay la xiriirtay saloonka ama bukiyeerkana, waxay u sheegeen in iyada iyo gabar kale oo shaqaale ah oo ay meesha iskala shaqayn jireen ay 5 galabnimo soo xireen ugu dambeyn saloonka ama bukiyeerka, kadibna ay guryahooda kala aadeen. Xilligaa kadibna aysan arag. Intaa kadib boolisku waxay bilaabeen baaritaankooda. Markii ugu horreysay waxay la xiriireen ninkeedii hore Jason Cummins waxayna ku yiraahdeen waxaan rabnaa inaad noo imaato oo aan wareysi ka qaadno. Isagana waa uu oggolaaday. Intaa kadibna waxay boolisku la xiriireen saloonkii ay ka shaqayn jirtay, waxayna u sheegtay haweeneydii lahayd saloonka intii ay u sheegtay hooyadeed oo kale. Waxay ku tiri waxay ahayd Jolene iyo gabar kale oo mar dhow ku soo biirtay bukiyeerka, labadii qof ee ugu dambeeyay ee saloonka joogay. Haweeneyda kale ee mar dhow ku soo biirtay saloonka waxaa lagu magacaabaa Jennifer Sybert. Waxay ku tiri Jennifer iyo Jolene waxay ahaayeen maalinkii 12 May labadii qof ee ugu dambeeyay ee joogay. Markii la gaaray 5 galabnimo ayayna soo xireen bukiyeerka oo guryahooda kala aadeen, dibna uma aanan arag. Intaa kadib waxay bilaabeen boolisku inay raadiyaan baabuurkeeda, waxayna ka raadiyeen baakinka saloonka iyo goobaha ka agdhow, laakiin waa ay ka waayeen. Waxayna ogaadeen boolisku in baabuurka ay meesha ka wadatay ama ugu yaraan inuu qof baabuurka meesha ka waday. Intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen taleefankeeda iyo baraheeda bulshada, laakiin waxay ogaadeen in 2 maalin ee ugu dambeeyay aan wax dhaqdhaqaaq laga sameyn, waxna aan la soo gelin baraheeda bulshada. Intaa kadib waxay sameeyeen musawirka baabuurkeeda iyo musawiradeeda waxay u direen warbaahinta maxalliga ah iyo baraha bulshada ee maxalliga ah ee wararka lagu soo gudbiyo si ay u faafiyaan bal haddii qof uu arkay inuu booliska la soo xiriiro. Intaa kadib waxay u soo jeesteen haweeneydii markii ugu dambeeyay ee isla joogeen saloonka, Jennifer Sybert. Boolisku waxay ku yiraahdeen Jennifer waa inaad noo imaataa oo xarunta booliska ah imaataa si wareysi aan kaaga qaadno oo aan kaaga ogaano wixii dhacay. Laakiin Jennifer oo ay ka cudur daaratay inay timaado xarunta booliska, waxayna ku tiri booliska ma geli karo wareysi boolisku ay qaadayaan ama baaritaan boolisku ay sameynayaan. Sababtoo ah waxay tiri waxaa jira nin hore oo xiriir naga dhexeeyay oo aan isaga soo tagay magaalo kale dartiis. Waxayna u sheegtay dambibaarayaasha inuu dabagal ku hayo oo isaga ay ka dhuumanaydo. Sidoo kalena waxay u sheegtay inuu hackar yahay oo uu ku fiican yahay sida kombiyuutarada loo jabsado. Haddii ay baaritaan boolis gasho oo magaceeda uu ka soo muuqdo kombiyuutarada booliska ama sidoo kale ay ka soo muuqato warbaahintana, waxay u sheegtay inuu ogaanayo halka ay joogto, dabagalna uu ku sameynayo.
inkastoo marka koowaad uu dambi baaruhu la yaabay waxa ay sheegayso, haddana ma uusan doonayn inuu arrinkaas gudaha usii galo. Wuxuu ku mashquulsanaa arrinka Jolene, wuxuu doonayay keliya inuu arrinka Jolene wax ka ogaado. Kadibna wuxuu ku yidhi, waxaan doonaynaa keliya inaan wax ka ogaano Jolene. Maalinkii ugu dambeeyay oo labadiina aabukiyeerka soo wada xirteen, ma kuu sheegtay Jolene meel ay aadaydo ama wax qorshaha oo ay leedahay oo fasax ay aadaydo? Waxay ku tiri, aniga iyo Jolene xiriirkeenu ma uusan wanaagsanayn oo laba qof oo si fiican isku yaqaano oo si fiican iskula hadla ma aanan ahayn. Jolene si caadi ayay maalinkii u dhaqmaydo, qof caadi ayayna ahayd, mana is ii sheegin halka ay aadaydo ama fasax ay qorsheynaydo inay aado. Intaa kadib wuxuu ku yidhi, Dambaaru waa mahadsan tahay, haddii aan wax macluumaad oo dheeriya kaaga baahno waa kula soo xiriiri doonaa. Intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen Jolene, bal haddii qadiyado hore ay ka yaalliin xarunta booliska. Waxay ogaadeen in dhowr maalin ka hor intii aan la wayn uu jiray dacwad laga soo gudbiyey kadib markii isqabsadeen ayada iyo nin kale oo lagu magacaabo Jason G. Markii ay sii akhriyeen warbixinta booliskana waxaa ku qoreed in ninkan lagu magacaabo Jason G uu gurigeeda imaaday, kadibna uu ku yidhi, waxaan doonayaa inaan caawa kula hoydo. Intaa kadibna ay diiday, kadibna ay isdagaaleen. Markii buuqoodu uu kor noqday oo qayladooda ay badatana, dadka deriska ay booliska la xiriireen. Markii ay booliska guriga imaadeenna, wuxuu ahaa maruu dagaalkii iyo doodii dhammaaday. Dagaalkuna gacan ka hadal ma uusan gaarin oo keliya dood ayuu ahaa. Markii ay booliska imaadeen waxay ahayd xilli dambe oo Jason G mar hore ayuu guriga isaga tegay. Intaa kadib waxay la xiriireen hooyadeed, waxayna ka codsadeen inay gurigeedii baaraan. Intaa kadibna booliska waxay tageen guriga, baaritaan ayay ku sameeyeen. Guriga markay tageenna wax walba waa isku dhex yaacsanaayeen, guriga qaybo ka midana waa u jajabnaa. Intaa kadib waxay is yiraahdeen booliska waxaa ka dambeeya Jason G. Markii ay baaritaan kusii sameeyeenna ninkan lagu magacaabo Jason G waxay ogaadeen in isaga iyo Jolene uu xiriir ka dhexeeyay. Maalinkaasna uu gurigeeda yimid, kadibna uu isku dayay inuu gurigeeda seexdo, laakiin ay diiday, sidaa darteed ay isku dagaaleen. Sidoo kalena waxay ogaadeen in Jason G uu yahay qof dambiye hore u galay oo xabsiga ka soo baxay. Sidoo kalena waxay ogaadeen in uu jiro amar ay boolisku soo saareen oo warqad loo jaray in Jason G la soo xiro, maadaama uu khilaafay shuruudihii looga soo daayay xabsiga. waxaasoo dhanna waxay dhaceen maalinkii 14 May. Maalinkii xigay 15 May, Jason Cumming oo ah ninkeedii hore wuxuu yimid xarunta booliska. Boolisku waxay weydiiyeen marka koowaad haddii isagu uu ka dambeeyay weynta gabadha la waayay. Kadibna wuxuu ku yidhi, aniga iyo Jolene khilaaf waa naga dhexeeyay, waa sax, oo ilmo ayaa isku haysanay, laakiin wax dhibaato ah uma geysan, weligeena gacan uma qaadin, mana ogi halkii ay ka baxday, anigana kama dambeeyo weynteeda. Sidoo kalena wuxuu u sheegay in maalinkii la weynayay isagu uu joogo guriga saaxiibkiis. Intaa kadib Dabibaaro wuxuu ku yidhi, waxaan rabaa inaad taleefanka baaro. Kadibna wuxuu ku yidhi, waa baari kartaa. Dabibaaro wuxuu baaray taleefankiisa, kadibna wuxuu ku yidhi, waxaan rabnaa inaan baabuurkaaga baarno. Kadibna waa u ogolaaday, baabuurkiisa ayayna baareen. Markii baabuurka iyo taleefanka ay baareen waxba ay ka waayeen, sidaa darteed waa iska sii daayeen. Intaa kadib waxay bilaabeen inay raadiyaan Jason G. Jason G isagu booliska uu ka dhudhuumanayay, mar walba ay gurigiisa tagaana waa ay ka weynayeen, meel walba oo loogu sheego ay tagaana waa ay ka waayeen. Marka ay taleefankiisa la xiriiraanna taleefanka kama uusan qabanayn ama waaba uu ka dansanay taleefanka oo dhan. Markii hore boolisku waxay islahaayeen wuxuu u dhuumanayaa maadaama amar ah in la soo xiro uu jiro, laakiin mar walba uu dhunto oo dhudhuumashadiisu ay sii badato, booliska waxaa kusii badanayay dambibaarayaasha shakiga inuu ka dambeeyay Jolene weynteeda. Ugu dambeyntii waxay raadiyaan oo ay dabagal ku hayaan, waxay ka heleen mid ka mid ah qaraabadiisa gurigiisa. Intaa kadibna waa ay soo xireen, waxayna ku soo xireen warqadii loo jaray oo ahayd in la soo xiro. Markii ay soo qabteen waxay ka qaadeen waraysi. Marka koowaad waxay weydiiyeen inuu isaga yahay qofka guriga jajabiyay. Waxay ku raadeen, waxaan tagnay guriga, waxaana u tagnay guriga oo isku dhex yaacsan iyo wax walba oo jajaban, albaabka iyo miisaska iyo armaajooyinka albaabadooda jajaban. Wuxuu ku yiri gurigaas mar walba ayuu sida u jajabnaa, inta badan mar walba ayuuna isku dhex yaacsanaa. Laakiin maalinkii aan isqabanay aniga iyo Jolene, marmarka qaar oo aan aad u xanaaqo, albaabyo iyo waxba dardarbeynayay ama waxba feerayay, laakiin Jolene wax gacan uma aana qaadin. Intaa kadib Dabibaaro wuxuu weydiiyey markii ay isku dhaceen isaga iyo Jolene oo arrinkan dhacay ma waxay ahayd maalinkii Sabtiga 12 May. Wuxuu ku yiri ma aysan ahayn, muddo ka hor ayay ahayd. Wuxuu ku yiri Dabibaaro intaa kadib xaggee joogta maalinkii 12 May. Wuxuu ku yiri Jason waxaan joogay guriga in adeertay. Sidoo kalena wuxuu u sheegay Jason dabibaarayaasha in sababtii uu uga dhudhuumanayay ay ahayd booliska, maadaama warqad loo jaray in la soo xiro, sidaa darteed uu u dhudhuumanayay
ee uusan u dhuumanin inuu Jolene dilay ama inuu Jolene dhibaateeyay darteed. Boolisku intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen bal haddii uu run sheegayo oo maalinkii Sabtida uu joogay guriga in adeertiis, waxayna soo hubsadeen in waxa uu sheegayo ay run tahay oo maalinkii Sabtida uu joogay guriga in adeertiis. Sidaa ayayna ku xaqiiqsadeen boolisku in Jason G uusan dilaaga noqon karin, maadaama Jason G uusan dilaaga ahayn, Jason Cummins uusan dilaaga ahayn. Boolisku waxay dib ugu laabteen meeshii bilowga ay kasoo bilaabeen, waxay dib ugu laabteen saaloonkii Tangles. Mid ka mid ah dambibaarayaasha ayaa tegay isagoo la hadlaya haweeneydii milkiilaha ahayd oo saaloonka lahayd. Waxaa soo gashay Jennifer Sybert. Jennifer markii ay soo gashayna waxay ku tiri haweeneydii milkiilaha ahayd, dambibaaraha wuxuu rabaa inuu kula hadlo, adiga ayuu kuu joogaa. Intaa kadib Jennifer waa ay xanaaqday, waxayna ku tiri ma doonayo inaan qayb ka noqdo baaritaanka booliska. Kadibna waxay ku tiri shaqadaada oo dhanba waa isaga tegay, iridda ayayna ka baxday oo waa iska tagtay. Arrinkaas wuxuu keenay in shakiga uu ku bato maadaama ay ahayd qofkii ugu dambeeyay ee arkay Jolene oo ay saaloonka isla soo wada xireen, sidoo kalena ay cudurdaar aan macquul gal ahayn horey ugu sheegtay booliska. In haddeerna ay shaqada isaga tagto waxay keentay inay noqoto qofka koowaad oo ay ka shakisan yihiin. Intaa kadib qof ayaa booliska soo wacay, wuxuuna u sheegay inuu helay baabuurka Jolene. Wuxuu ka helay isagoo taagan mid ka mid ah baakinka subarmarketyada ka ag dhow saaloonka. Wuxuu u jiray 4 kiiloomitir. Markii ay tageen boolisku goobta, baabuurku wuxuu ahaa baabuurkii Jolene. Markii ay baabuurka baaritaan ku sameeyeen waxba waa ay ka waayeen. Intaa kadib waxay raadiyeen kaamirooyin haddii ay meesha ku dhagan yihiin si ay u ogaadaan qofkii baabuurka meesha keenay. Nasiib wanaagoodana waxay heleen bangi goobta ka ag dhow kaamirad uu leeyahay oo jidka duubtay. Markii ay kaamiradii baaritaan ku sameeyeenna waxay ogaadeen arrin la yaab leh. Baabuurka wuxuu yimid goobta oo lagu soo baakimay 1:00 habeenimo ama 7 saac habeenimo maalinkii xigay ee 13 May, waxayna ahayd dhowr saacadood kadib markii bukiyeerka ay xireen. Sidoo kalena waxay ka dhex arkeen muuqaalka qof baabuurka ka soo degay oo ahaa darawalkii baabuurka oo baabuurka kasii fogaanaya. Qofkana ma aysan aqoonsan karin maadaama muuqaalka quality-giisa uu liitay oo qofka si fiican uusan u muuqan, aadna uu kaamirada kaga fogaa. Laakiin nasiib wanaagooda dambibaarayaashu waxay fiiriyeen halka ay u socoto, waxayna ogaadeen inay u sii socoto kaalin shidaal oo goobta ka ag dhow. Kaalinta shidaalkuna waxay leedahay kaamirooyin. Kaalinta shidaalka ayay tageen waxayna ka soo qaateen muuqaaladii 1:00 habeenimo ama 7 saac habeenimo maalinkii 13 May. Muuqaaladana markaan si fiican ayuu qofka u muuqday. Waxay ahayd haweeney dhar madow wadata. Muuqaalkuna wuxuu si fiican u sii muuqday markii ay gudaha u sii gashay kaalinta shidaalka. Haweeneydaasna waxay ahayd Jennifer Sybert. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay tageen bukiyeerka si ay baaritaan ugu sameeyaan. Markaana waxay bukiyeerka u baarayeen sidii goob uu dilku ka dhacay oo kale, horeyna baaritaan uguma aysan sameyn. Dambibaarayaashana waxaa aad u caawinayay in bukiyeerka aan la furin tan iyo maalinkii la waayay Jolene oo maalinkii 12 iyo maalinkii 13 May waxay ahayd maalmihii fasaxa oo ay shaqaaluhu fasaxa ku maqnaayeen. Markii fasax laga soo laabtayna lama furin. Markii ay yimideen markaan waxay isticmaaleen boolisku maado lagu magacaabo luminon. Waa maado lagu buufinayo dhulka. Markii ay maadada ku buufiyaan waxay ku shidayaan nal, kadibna waxay arkayaan dhiigga. Haddii xataa dhiigga goobta laga nadiifiyo oo maadadaas lagu shubo kadibna nal lagu shido, nalkaas wuxuu soo saarayaa dhiiggana wuxuu u muuqanayaa sidii buluug oo kale. Maadadaas ayay ku shubeen, waxayna arkeen goobo badan oo dhiig leh. Dhiiggii markii ay qaadeen oo ay shaybaarka u direenna waxay hubsadeen inuu yahay dhiigga Jolene. Intaa kadibna waxay bilaabeen inay raadiyaan Jennifer. Waxay ka ogaadeen bukiyeerka ciwaankeeda. Markii ay tageen ciwaankana waxay ogaadeen in ciwaan jira uusanba ahayn oo ciwaan buga uu yahay. Intaa kadibna waxay baaritaan ku sameeyeen ama dabagal waxay ku sameeyeen taleefankeeda, waxayna ogaadeen inay joogto deegaan lagu magacaabo St. John's. Kadibna waxay aadeen halkii ay joogtay. Markii ay tageen deegaankaasna mid ka mid ah dambibaarayaasha ayaa wuxuu arkay baabuurkeeda. Markii ay baabuurka tageenna waxay arkeen qof baabuurka dhex jiifa. Intaa kadibna waa ay kiciyeen, qofkiina baabuurka ayuu ka soo baxay. Waxayna noqotay Jennifer Sybert. Wuxuu ku yiri dambibaaruhu, baabuurka Jolene ma adiga ayaa waday habeenkii 13 May? Kadibna waxay ku tiri maya. Intaa kadib wuxuu ku yiri dambibaaruhu kuma aaminayo. Waxay ku tiri haddii aadan i aaminayn waxaan u baahanahay inaan qabsado qareen, idin lama hadlayo aniga oo aan qareen qabsan. Intaa kadib waa ay soo xireen boolisku, waxayna dib ugu soo celiyeen Fernandina Beach. Intaa kadib boolisku waxay bilaabeen inay raadiyaan kaamirooyin ka ag dhow ama haddii ay kaamirooyin ku xiran yihiin saaloonka. Kaamirada ku xiran qaybta hore ee saaloonka waxay ahayd kaamirad aan shaqaynayn. Laakiin nasiib wanaagooda markii ay baaritaan sameeyeen waxay heleen in kaamirada dambe ay shaqaynaydo. Kaamirada ayay fiirsadeen,
waxayna arkeen boolisku wax ka yaabiyey. Waxay arkeen Jennifer Sybert oo cabaar kadib ka soo baxayda saaloonka iyada oo wadata bacyo waaweyn oo bacaha qashinka ah oo ay wax ku jiraan, kadibna ku ridayda haamaha qashinka 7:59 daqiiqo habeenimo ama 1:59 habeenimo. Sidaana dambi baarayaashu waxay ku ogaadeen in Jennifer ay been u sheegtay markii ay tiri 5tii galabnimo ama 11 saac galabnimo ayaan saaloonka xirnay, oo waxay ogaadeen ilaa iyo xilli dambe inay habeenkii joogtay. Intaa kadib waxay baaritaan ku sameeyeen baabuurkeedana waxay ka dhaxleen maqasyo ay u isticmaali jirtay inay dadka timaha ugu jarto. Maqasyahana waxay ku arkeen dhiig. Markii ay dhiigga baaritaan ku sameeyeen waxay ogaadeen inuu yahay dhiigga Jolene Cumming. Sidaana waxay ku hubsadeen in maqasyaha ay yihiin hubkii loo isticmaalay in wax lagu dilo. Sidoo kalena waxay heleen rasiid ay ku qoran yihiin alaab ay Jennifer soo iibsatay. Alaabta waxay ahaayeen bacyaha qashinka. Sidoo kale waxay soo iibsatay alaabo wax lagu nadiifiyo. Waxay soo iibsatay gloves. Sidoo kalena waxay soo iibsatay miinshaar yar oo koronto ku shaqeyda. Intaa markii ay ogaadeen boolisku waa ay dareensanaayeen waxa ay alaabtan ku sameynayday. Jennifer waxay dishay Jolene, kadibna waxay googeeday meedkeeda, waxayna ku riday bacyo, kadibna waxay ku riday haanta qashinka. Intaa kadib baabuurkeeda ayay waday. Baabuurkana waxay geeyday supermarketka, kadibna waa isaga tagtay. Intaa markii ay ogaadeen dambi baarayaashu waxay go'aansadeen inay baaritaan ku sameeyaan Jennifer. Waxayna ogaadeen arrin ka yaab badan wixii hore oo dhan. Waxay ogaadeen in magacaas Jennifer Sybert iyo magaca hooyadeed iyo aabaheed iyo nambarka aqoonsigeeda ay tahay gabar geeriyootay sanadkii 1987 iyadoo 13 jir ahayd xilligaas. Gabadhaas magaceedana wuxuu ahaa Jennifer Mary Sybert. Waxay dhalatay sanadkii 1974 waxayna geeriyootay sanadkii 1987. Waxay ogaadeen dambi baarayaashu in haweeneyda ay hayaan ay soo xireen aysan ahayn Jennifer Sybert, sidoo kalena aysan ahayn qofka ay sheeganaydo inay tahay. Marka lagu daro inay dambiile tahay oo dilaa tahay, sidoo kale waxay ogaadeen inay tahay qof magacyo faalsa ah iyo aqoonsiyo aan jirin qaadata. Intaa kadib dambi baarayaashu waxay la xiriireen Jennifertii saxda ahayd aabaheed. Waxayna weydiiyeen sida ay haweeneydan ku heshay aqoonsiga gabadhiisa. Isagana wuxuu ku yiri ma aqaano sida ay ku heshay. Waxay iska dhaadhiceen dambi baarayaashu in aqoonsiga ay ka soo iibsatay deep webka ama internetka madow 2 maalin markii ay hayeen 18 May 2018. Ugu dambeyn waxay go'aansatay Jennifertii bugta ahayd in dambi baarayaasha ay la hadasho wax walbana ay u sheegto. When you run my fingerprints through, they come up as Kimberly Lee Kessler. I was born in May of 1968, May 9th. I am 50 years old. I've been running from the FBI for over 25 years. Waxay u sheegtay dambi baarayaasha in magaceeda la dhaho Kimberly Kessler. 9 May sanadkii 1968 ay dhalatay. Waxayna u sheegtay inay ku dhalatay magaalo lagu magacaabo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania. Waxay u sheegtay dambi baarayaasha inay yaraanteedii ahayd gabar waxbarashada ku fiican, laakiin qoyskeedu ay ahaayeen qoys waalan, gaar ahaan hooyadeed. Sidaa darteedna ay dad xunxun saaxiibo la noqotay. Ugu dambeynna markii ay soo qaan gaartay ay gurigooda oo dhanba isaga tagtay, waxbarashadana isaga tagtay, kadibna ay u wareegsatay gobolka Arizona. Waxayna u sheegtay inay halka ka shaqeey jirtay, shaqadeeduna ay ahayd inay kalabyada ka niikido. Intaa kadibna ay nin isbarteen, isaguna uu baxar galiyay. Sababta oo wuxuu ahaa ay tiri nin ay FBI dabagal ku hayaan, wuxuu ahaa tuug bangiyada dhaca. Markii ay FBI-du ay baaritaanka ku adkeeyeen waxay u sheegtay inay gurigeeda ku qariday. Sidaa darteed ay FBI-du u raadinayaan. Sidoo kale waxay u sheegtay inay ninkii isku dhaceen, kadibna ay aado gobolka Virginia oo gobolka Virginia u wareegtay, isaguna uu bilaabay inuu dabagal ku hayo, isagana ay baxsad ka tahay. Intaa kadib dambi baarayaashu waxay weydiiyeen oo iyaga muhiim u ahaa qadiyada Jolene. Ma aysan inkirin inay Jolene iyadu dishay sababtoo ah cadeymo ayay ku hayeen, laakiin mar walba waa ay ka warwareegsanayday oo wax toos uma aysan sheegin. Intaa kadib waxay go'aansadeen inay baaritaan ku sameeyaan taariikhdeedii hore. Waxay dambi baarayaashu ku guuleysteen inay helaan dad badan oo ay horey ula soo dhaqantay ama ay horey xiriiro ula soo samayday. Dadkaasna intooda badan waxay u sheegeen in Kimberly ay ahayd naag waalan oo shaydaana oo gacanqaad badan. Dadkii waxaa ka mid ah ay xiriirada la soo samayday nin u sheegay inay xiriir la samayday. Markii horena gabar jacayl badan oo miskiina ay ahayd, laakiin markii dambe ay isku bedeshay qof dabeecad xun oo gacanqaad badan. Wuxuuna u sheegay inay mar isqabteen, kadibna ay midda xabadka kaga mudday. Sidoo kale waxay ku guuleysteen boolisku inay dad badan la kulmaan oo kala duwan oo qof walba ay waraysi ka qaadaan. Waxayna ka ogaadeen boolisku dadka intooda badan qof walba uu u yaqaanay magac iyo aqoonsi ka duwan
magaca iyo aqoonsiga oo qofka kale u yaqaanay. Boolisku waxay ogaadeen inay iska dhigtay oo aqoonsiyadooda iyo magacyadooda qaadatay 17 qof oo kala duwan. Sidoo kale waxay ogaadeen inay gobolba gobol isaga gudbi jirtay oo gobol walba oo ay tagto ay magac cusub iyo aqoonsi cusub ku joogi jirtay. Arrinkaasna waxay waday oo ay sameynayday 25 sano ee la soo dhaafay. Intii ay boolisku hayeen oo ay booliska u xireen waa ay diiday inay qirato inay dambiga geysatay, inkastoo ay cadeymo ku hayaan. Intaa kadib boolisku waxay isku dayeen inay raadiyaan oo ay soo helaan meydkii Jolene. Boolisku waxay la xiriireen dambi baarayaashu shirkaddii qashinka qaaday maadaama meydkeeda ay ku rid ahaanta qashinka, waxayna geeyeen shirkaddii halkii ay qashinka ku daadiyeen. Laakiin baaritaano ballaaran oo ay sameeyeen kadib waxba waa ay soo waayeen. Ugu dambeyn 7 Sebtembar 2018 ayaa maxkamad la soo taagay, waxayna go'aansadeen garsooraha iyo xeerbeegtidu inay tahay dilaa geysatay dil darajada koowaad ah. Go'aanka markii ay qaateen kadibna Kimberly waxay la soo baxday dabeecadaheedii xumaa. Waxay sameyn jirtay intii ay xabsiga ku jirtay waxyaabo la yaab leh. Waxyaabihii ay sameyn jirtay waxaa ka mid ahaa inay saxaradeeda koob ku shubto kadibna ay booliska ku firdhido, ama marmarka qaar inay saxaradeeda qaado kadibna shabaqa albaabka ay marido. waalideeda waxay gaartay in boolisku ay u soo bandhigaan dhakhtar cilmi nafsi, weliba 2 dhakhtar cilmi nafsi. Dhakhaatiirtan waxay yiraahdeen waxaa laga yaabaa inay iska dhigeedo qof waalan. Ugu dambeyn laakiin go'aanka waxaa lahaa garsooraha. Garsooruhu ugu dambeyn wuxuu go'aansaday in la maxkamadeeyo oo ay maxkamadeyn mari karto. Qofkii iska dhigtay 17 qof oo kala duwan dhib kuma aha in iska dhigto qof waalan, laakiin mar walba marka ka dambeeyay Kimberly waxay la soo bixiyay dabeecado waalan. ugu dambeyn waxay gaartay markii ay maxkamadda keenayaan inay soo xirxiraan oo iyadoo kursi ku xiran ay maxkamadda keenaan. xataa iyadoo saasa mar walba waxay cay jirtay kooxda xerbeegtida, waxay cay jirtay xeer ilaaliyaha, sidoo kalena garsooraha. qof ay ka tagi jirta lama arko. waxyaabihii ay sameeyday sidoo kale intii ay xabsiga ku jirtay waxaa ka mid ahaa inay cuntada ka go'day oo cuntada ay iska diiday ilaa ay caatowday oo dhammaad ay noqotay oo inta ugu badan miisaankeedii ay weyday. inkastoo ay diiday inay qirato inay dambiga geysatay, laakiin booliska waxay aaminsanaayeen inuu dilku u dhacay sidaan. labadooda isma ay jecleen Jennifer iyo Jolene oo khilaafaad ayaa ka dhaxeeyay. maalinkaasna kaligood ayay joogeen saaloonka oo qof kale ma aysan joogin. intii ay saaloonka joogeenna mar kale khilaaf ayaa ka dhex dhashay, arrinkaasoo keenay in Jennifer ay Jolene disho kadibna ay meydkeeda gogoydo kadibna ay haanta qashinka ku darto. ugu dambeyntii 2020 inkastoo wax walba isku dayday inay Kimberly sameydo oo iska dhigto qof waalan, laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu eedeeyay dil darajada koowaad ah, waxaana lagu xukumay ugu dambeyntii xabsi daa'im. qisadayna maanta intaasay ku eg tahay. tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa amaano Allah.